dalka haysta ee madaxweynuhu ka soo jeeda ummaddu isku wada ummaddu masaalaxa kula dhaqma ilmaada reer run baan anu walaahi idin sheegaya ummaddu isku wada war madaxweyne aanu nay bal waxa aqliga xumidiina idinku eega madaxweyne ma noqonaya musabixi marka هذا الريك مدحوينه آه بيشو كسو جيدا ومدي isku soo jiidaa wanaag ka shaqeysa waligay maan arag reerkii uu horeeyay xumaan ka shaqeeya haydeen ee hadana la inankayaga madaxweyne hal la yiraahdo war madaxweyne ma ahna calaatula caleek cirka geeya handaraabku keenay marka waxaan sii xusuustaa oo la yaabo isweydiiya laba nin oo imika Muuse Biixi laba fayflo wada laba gaari oo Langaruusel 4.f ka 4f ka kuna yiraahdaan ayay laba gaari u wadaan laba nin labadaan waxay wadan jireen laba suug qoriga suuga la yiraahdo waa kan aanu wadan jiray ninka xabashiga wuxuu yiraahdaa Etoobiyaanku suug alle iskaabir alle ilaahayna wuu jiraa suugna wuu jiraa bura ruushka ninka la yiraahdaa ku dhaartay suuga adoo gaari suuga saaran haday ku helaan 20 tiinkii waa difaacisa waa marka ninka tagay suuga wato 20 tiinka biyo ka banmaysid 160 waxaan ku 320 ka basaas wareegaya sida aakeega mar ugu dagaalamaysa labadaan waxay wadan jireen laba suug binti tiri nin wuxuu wadan jiray suug sabax saaran iska rogo sabaxa ninna wuxuu wadan jiray suug TR gaariga TR ka farqiiqla loo yiraahdo Mareykanka waa qoriga suugiina gaari la saaro waxa ugu cawaansan farqiiqla in adeer labadii ninba labadii suug oo istaaran oo ram taahaya ay ciidagalo soo yaacay harcad hadda iyagoo ku dhex jira 750 tignika oo maryaaloolkiya anagoo ah ayuu labadoodii ka soo yaacay war maxay idin helay labadiiba horta Muuse xiniya uu biday waa labada suug ka soo cararay war maninka suug ka carraa gaari yar oo dhishka maanta wata oo joogaya ilaahay baa ku dhaariyay suug binti tiribu ka soo carray suug alle iskaabir alle ka Etoobiyaan ku dhaartaan suugna waa jira ilaahayna waa jira war maninka laba suug ka soo cararay ayuu Muuse intuu sidaa u dhex maray tulkii ayuu labadaas kuwaas ay difaacaya hadda laba suug bay harcadka ka soo careentoon iyagoo ku dhex jira 150 tignik oo isaaq daarood samaroon gabooye intaasoo dhan oo maryaalo iyagoo ku dhex jira ay ka soo cararayeen Muuse na kuwii buu waday ay geesiin bida ilaah nin buusita baa labada gaariba ka rogi doona ilaahay baa runta jecel rag waa shaqaanaaye rag waa shaqaana marka runta tagtay ee qaraaraato ade rag baa gaariga saaran yihiin oo qorigu saaran yahay aamin waayo ka lugayo carra oo nafi orod bay kugu aamintay dhaahal ragii lahaa nafi orod bay kugu aamintaa ee gaariga afar lugoodka ee suugu saaran yahay aamin waayay anu maanta halka ka faanayaan ma garanayo maanta halka laga faanayo wallahi ma garan karo يعني أفكر ودري هالبدل ما قرسان ده هذا لنا وطن مويه إلهي بان كبري وإلهي بان كبري أنا طقار شيء وما لنا دحلي إلهي كم بري إلهي بان كبري ما أنت الشيء نصور سقالي تبن كتري جوتها برول حطانين أركتان كبيه نوع يقول ده مركع هذا هو سقالي تبن كتري جوتها مكجوجة إلهي وش شيء نصور إلهي صومالي نصورته بالحال إنه تري جوتها أنا أركتان balin gaar saaran aragtaan oo reerkaas nafi orod bay kugu aamintaa wallahi ana wajaala ka sukeenahay
wajaale inaanay ka sokaynayn baan ku uri waxaa imika darajada seeta hal minid gudahood baa darajada lagu qubi lahaa balaayaa taliya guutaa balaayaa tigni ka kaxaysa hooyo nuurow waxaa odhan kelmadda halhaysiga iyagaa lahaa kelmadda inay hadal galbeed tay wad hooyo nuurow Norway hooyo nafta kula orod buu odhan jiray yacni wallaahi maanta haddii shaya ina soo weeraro inaanay gaadhi saarnaanayn oo aanay taliya guuta noqonayn oo aanay darajo yeelin war raggii difaacayay markay sidaa iskaga caayaan ciyaar raggii difaacayay ee ay dhabtooda ku jiifeen ee ay madaxooda ku daaqayeen ee cududooda ku daaqayeen markay maanta sidaa ula hadlayaan ay waxaan ku dhigtay kibirka u wadaan talo yeeshay ka difaacaya ilaahay waxaan ka baryayaa Soomaaliya iyo Puntland oo wada socda oo 500 oo tiin ka wada in casarkeena soo weeraraan bixi hatta aragtaan Sacad Muuse oo nin habar awalo darajo xiran hatta aragtaan maalinta in loo yeedhi doono dhaga weyne waa loo yeedhi nin kale ma jiro dhaga weyne waa loo yeedhi nin kale habar awalo darajo xiran hatta aragtaan maalinta kabihiina waxay ugu rida oo dhaga weyne ahayn war adeer anagu ma faanay xaqiiqdan ku dhaaranaa xaqiiqdan ku hadalnaa miyaanu ku xilqarnaa ma been baanu sacabka ugu tunaa ma Muuse mujaahid aanu ku nidaahnaa been baanu kugu tunay weligiiba aslan taliya ururka mu noqonay bal waxa igu tiraahdaan ururkaas Muuse taliya ka noqday Cabdiraxmaan Tuur baa abaalkiisa yaqaanay markuu arkay Muuse inaanu halgagalahayn bilguudlo talis kasta ugu meersanay sida maamqaata وكلبا ciidanka taliska intuu shiriyo wallahi inaan beenidii sheegay Muuse cajarada ma iska soo duuba maartay Muuse ciidan ugu badanaynay waa halkii ma faran baa war taqaanaa ciidanka taliska balgubadle ilaaliyo ururkaas subaxiintu banaanka u soo saaro cabtiliska duub jirinta koor qabalay soo xidho wallahi cadiib markuu Cabdiraxmaan Tuur arkay inuu xeradan uu ku meeraystay ila meerayso uu xeradii ururkan yar kulba cajaradiga duuba kolba cajalad iskaga duubo oo ku waashay ayuu Cabdiraxmaan Tuur markuu arkay ninkan inaan faran loo diri karahayn ayuu wuxuu u magacaabay xiriirka qaxoontiyada afraad ma isaga watay afraad dad maqashay den adeer mujaah kaagina xiniintaad ka saaraysa fulaygiina waxaad siinaysaa libin xageed ku lowday maxamed cilmi samatar galaal وطليه أفراد هالكيت كيلودي أبي بلقح وطليه كحيين كي أيوب هالكيت كيلودي أفراد ما وح أطلق أنا نسعد مصلها عيدا صعد موسيقى كارو لها يمشرو ونحن بس عيدا كلا لا بعتنا الحين أفرادنا واحد عيد والبا مع الأيوب عيدا كأيوب كان حوق كبرنا شنادنا واحد مع عيدا كترجع لأنه هي بالمراكب باب طليه كان شلو ترجع له ما حد ku haystaan ciidanka la haydeen oo gutay ka la haydeen Muuse daas haysan war Axmed Dhagax Abi Dhagax baa taliye ku xigeen ka cilmi samatir baa watay gacmo dheere ayaa taliye ku xigeen ka markii hore markii dambe uu dhintay Axmed Dhagax waxa qabsaday Abi Dhagax markuu dhintay Umar Toori baa qabsaday ciidanka gebiso taliye guta ka noqday nin Sacad Muuse abaa loo dhiibay gabax ninkii loo oran jiray waa kii faqash isku dhiibay hadhad halkee joogteen maalintii dhaboolq lagu dhiibay waa ka hadcad sidhiibay gabax oo bax gobi hadcad waa kii faqashti isku dhiibay soo taliyihii afraada taliyaashii baa sidhiibay war Muuse Biixi afar korneel Muuse Biixi Cabdiraxmaan Xuusho miyaan laga soo celin waraaga bar iyagoo Djibouti isla galmarku dagaalku 7 cisho Hargeysa ka socday iyagoo aga bargelaya miyaan niman Jibriil Abukar ku dhaaran soo celin oo qoriis la hortaagin waliba يقول شنكر نيلا تاريخ تصور تادر تيجي لا ماشي كهينني تلي قوتي ساقو سليبين اللي كاتشرا وفقش سكو ديبي markaasa maanta aad hadlaysaan waliba ka war war siyaaran cabiyaan kala mir siyaaran tiyomada kala xishoonay anigu
anu sida dadka litirada qaar baa litiro la soo hor fadhiistee anu markaas sigaaraadi kala xishoonaya markaa waxaan leeyahay cumar tooriyo ciise musaaba taliya guute ka aha markii dambe taliya guutay sacad muuse noqon kari waayeen nin baa looga dhigo waa kiis dhiibay ayuub iyo ciise muuse taliya guutayaal ka soo maray siduu inuu cilmi galaal aidkii u dhaawacmay habeenkii Hargeysa la soo galay weligood taliya guute kamay noqon been baa isku haystaa ciidanka 20aad la yiraahdo nimanka makaahile bahas caade bulbusha leh adal ciidankaas wax ran jiray ran iyo nimanka bahas caade la yiraahdo anu taariikhda baan ku sheegayaa taariikhda bakee orodoo mujaahidiinta soo kaxay aniga halka ay soo fariistaano waanu doodaynaa car aniga hayla doodaan car hadii xiliyay bal inta isku tagtaan soo xulo oo mujaahidiintiina ugu waaweyn taqaanaan bal ii keena aniga Hargeysa habeenkii la wadeen Ismaaciil Leewar iyo laba gaari baad wadatay laba gaari 12 gaari Hargeysa la galay laba wadatay bal car aniga mujaahidiintiina keena hadaa xiniye leedihiin isaaq wuxuu iskugu tagay dhulka Sacad Muuse dego wallaahi inaan been sheegahay ilaahow nacdal xilli dambe joogaa inaan been sheegahay laakiin kama xumino tolkayay haayano dawaan la xoreeyeen oo kama xuminba laakiin waxaan diidanahay maanta dagaal isaaq dhexdiisa ay ku jiraan waa wax laga xumaado yaani waxaan ka xanaaqay Cabdiraxmaan Tuur buu midcaay adal Cabdiraxmaan Tuur kii ku xoreeyay dalka ku guuleystay anaga run ku sheeginay lixlu caay ina kood burbucay war qoodha ay xirana ninka maanta isaaqay lixleeyina kood burbucay meelina gubadalahay ma wax loo dul qaataa yaani waxay arkayaan war wax horaan anagu war ragay sanamta hada iska daaya ee wadanka soo shiiday hadaa doonta kuwa nool caaya war adeer uma dul qaadanayna mana aamusino lixle garxajis waa garxajis hadifaaci oran maayo waa mujaahid asnama waa difaacaya oo maxamed cali baan difaacaya oo ibraahim koodbur baan difaacaya laakiin kuwa imka nool ee garxajis difaaci maayadi hadaa kuwa idin ka soo jeedo waa qalad laakiin ragii adeer dhiigooda bahasha u soo huray waan difaacaya ma waan ku dul limanaya ku doonaha ahaaday saaqa inama yararo imkooydo tiro soo farxaraama imka laga dhigay dadka ayaa caayaadeer mujaahidiintii dhiigooda soo hurtay kama dul qaadan kareyno futadoodu xoreeyay wallaahi wabilaahi wallaahi wax lala yaabo maalintaada haraawlaha baan ogeyn ma lixlaa godka u galay gibilaana shiiniyo geesigii maxamed cali magabood madooba bal inta gabay soo dhigay haddaan lixlaa guga maanta la soo haray guusha war faqash oo ayaa siyaad bare amar bixiyay lixlaa buu yiri aslan kama bixina Soomaali oo dhan ka baxay sadexisho calanka hoosa loo dhigo halimada wuxuu ka qabo adawgii baa u garaabay markaasaad adigoo isaaqu futadaada xoreeyay habeen walba halkan soo fadhiisan saad caaysa ina gumeed ku dhalay war Axmed Dhagax baan difaacaya Sacad Muuse wallaahi hadii la soo qaado waan difaacaya wali maan aragnin sheekh saxaaqo saraakiishii sanam ee halkan ka ku geeriyootay caayo reerka ahayna wallaahi waligeyna aan arag bal ma Axmed Dhagax iyo gacma dheero oo nin garxajis ama nin Arabi caaya waligeen aragteen ma jirto adna ina koodbuur iyo lixliye maxamed cali baad maalin ay kala dhamaan laaday oo laf dhabartii asana maha inaader ilaahay baan ku warka ka aadan saleebaan caaya ka hayliqin caaya ka hayba gooraan caaya ka weerar caaya ka lixla caaya alfto caaya harag waafi caaya Axmed Dhagax caaya gacma dheer caaya wallaahi dhinac baan uga soo jeeday reerku doonahaade waa karbaashay reerka adna maanta iska leedahay
faqash buu hebelhaa hebel kale faqashhaa ina koodbuur baa faqashhaa ma ina koodbuuro adeer haashkaaga kii lagu baktinayay har cad la baxay oo intuu isaaq ciidanka ka soo xushay 11 nin oo isaaq oo qatar u soo xurtay oo shan habar jeclatay oo qiri laaday waliba maanta ninkii darawalka ahaa ee Siciid Birjeex Maadilowda Arabe Hargeysa inta ku dhaawacmay ilaa qaaxo aan oran xabad baa igu taala eeyda haddaan idhaahdo xabad baa igu taala anoo gaariga wada waxaan si rag way baqan Maadilowda adeer Maadilowda shaqi habar jeclay haleeyadaha ina koodbuur raggaas soo xushay markuu la baxayay ina askar markaasaad maanta ina koodbuur halkaas soo fadhiisanaysaa miyadaan nasab ahayn weydaan gob ahayn anagu adeer qabiil kan aad sheegayso wariyaa banjeed habar jeclaatay adigu soo cadow aniga waxba ha igu meeraysan xisbi baad lahayd xisbigaaga markaad la soo hadhay taliis markaasina wada hadli had cad baa xisbigaaga laga diray had cad maxaynu ku wada hadlaynaa baynaadar xisbigaaga horta la soo hadh 45 cishadu qabatay Muuse Bixi Maaye cirka ka soo leef baa lagu yiri markaas waliba waxa laala wixii daar siiraan bixiyay ee habar jeclaa Hargeysa ka xayira xiniyeelo horta adu inagu wada hadli maynee Cabdilaahi askar buu hada kii haashka lagu baktiinay haashka sidaas uu gaan ugu baktiinay talaa reer Sheekh Saxaaq ay inuu haashku baktiyo baaskoolad fuqaado ilka haba kaga qubay suu Sheekh Saxaaq waxa ku taro 7 nin oo habar wada korneyl asaa dhinac taxnaa ina koodbuurkii ka damqaday ay maanta caaya ma kuwaasa gobo Ilaahay baan ku dhaariyay Bixi baa ku dhintay oo taalada maanta miiska saraakiisha hortiisa taalada ka taagan ninkii Bixi ee Muuse Cabdallah loo dhisay ee miiska saraakiisha ku dhintay kuwaas ay caayaan maanta war miyaan birmageedaba lahayn birmageedaba miyaan lahayn waxaan ka orantay SNM iyo lixle isku miisaan bay haayeen badanaa naflaha birta laga asliyo tuutaha bakti badanaa lixlaha kugu soo baxsaday waxa ka tiriyay tuug tarabi in habar jeclaa maalintii lixle intee buu tiriyay وريس بدنا نفابرت لقى أسرية وتهب اختي بدنا اللحلة كبوصة بحصة سيراين ما أنت محول يسر مواد اللحلة يعني فكش وحيوها يست اللحلة حطيد الشيء إلى يسر مرة معطي كي بعد ما أنت عايزة أبا الله كينا أصاب مصبيحي أو حريرك بحوتيدا لو ديبو قمديga islaamaha ka soo ururinayay aad mujaahid u haysataa ma maalin rag qamadii ururiyahayd maalintii rag dhamacda ku jiray ay laadineen ilaa 90 musabbiixi qaxootiyadu ku qornaayo qamadigu soo ururinayay war ma maalin rag oo korneyl oo military qamadii ururiyahayd bal halka loo magacaabay baa halka Muuse loo magacaabay ayaa wuxuu yahay kugu filan man raga maalinta dhiigla ayaa qaxoonti joogayay ninkii dhiiga lahaa adeer dhamacdu maalinta ku jiray uu nafta u furay kii baad u haystaa awliyo raashinka islaamaha ka soo ururinayay ee halkan ka baxsaday faranta tii kari waayay ee taliska yar balgooda kolba ururka iskaga qaadayay cajaladaas kaga duubayay raggu markay halganka ku jireen raggii adeer halganka ku jiray cajaladaas kama duubin maad aragtay cajalad lixda ka qudbadaynayo maad aragtay cajalad maxamed cali ka qudbadaynayo maad aragtay cajalad ina hayba goor ka qudbadaynayo maad aragtay cajalad weerar ka qudbadaynayo maad aragtay isweydii maad aragtay cajaladu uu ka qudbadaynayna macalin Haaruun maad aragtay cajaladina koodbur ka qudbadaynayo maad aragtay cajalad hayliqin ka qudbadaynayo maad aragtay cajalad aadan Saleeman ka qudbadaynayo maad aragtay cajalad uu haragwaad ka qudbadaynayo maad aragtay cajalad Xaamud ka qudbadaynayo
cajaladu guutaala ka qudbadaynayo adeer dadkaasi raggii halganka dhabta ugu jiray baa ahayd idinkuna cajalada midhan ba xagga dambe iskaga duubi jirteen oo odhan jirteen marka dalka la galo taariikh aynu yeelano raggii adeer halganka u soo dhintay cajaladba lagama hayo mama duubaan mamay duubin halgan baaba ku jireen maxay duubi ninka fulayga unbaa xagga dambe iskaga duubi jiray dee cajaladaha boqolaal cajaladood baa soo bandhigtaan goormaa iska duubteen faranba maydaan joogin dee taliska balligubadla iskaga duubi jirteen habar jecla iyo arab iyo garxajis saraakiishoodii bal sarkaal cajalad iska duubay kii 91 nin soo gaadho dee xusuus reeb qoray laga duubay mooye bal in isagoo isagama cajalad cabdilaahi darawal baa mid laga helay hal cajaladaasna waxaa ka duubay weliba nin ciida galo la yidhaahdo oo reer guuloodo waxaa la yidhaahdaa hebel greeg aadan ingiriis baa la yidhaha aadan ingiriis oo xilligaa dalka yimid oo faranta tegey ayaa laba cajaloo duubay midna ciidanka ciidagalaho airboortka geliyu ka duubay midna cabdilaahi darawal iyo ciidankii ufuu ka duubay maalintii la midaynayay bal muuse biixigan aan weligii taliyo ururee sanam ka noqonaya ee kontonka cajalooda iska duubay ee balligubadle iskaga duubayey kolba ururkii yaraa talisku soo shirin jiray markaasuu iska dhigaa inuu farantii ka qudbadaynayo wallaahi waan weligiiba faran mu iman weligiina taliyo ururee sanam kamu noqon xagguu cajaladaha iskaga duubay bal boqolaalkan habaraa weli cajaladaha iska wada duubay adeer halkay joogeen adeer ninkii dalkan iyo dadka u halgamayey kumuu hamiyahayn beri toole cajaladahaaga hala daawado wuxuu ku hamiyayey soo dhimuu ku halgamayay ninka ragga maalinta ah ee cajalada iska duubo beri ku faan marka dalku xoroobo muu lahayn ninka ragga geesigii kumuu faanahayn taas run markaynu ka hadlayna anaa run idiin sheegaye ninka geesigii maalintaa kumuu faanahayn cajalada intaad iska duubta markuu dalku xoroobo isaaq ugu faan ismuu lahay ninka ragga wuxuu hamigiisa ku jiray ninka ragga dalka u soo dhimo ayaa ku jirtay damiirkiisu muu siinin cajalad laga duubo oo hadhow la daawado muu siinin damiirkiisu in sawir laga qaado dee sawir photoshop wuu jiraa qaar photoshop lagu sameeyey iyo qaar kaloo caadi loo qaadayba way jiraan laakiin ninkii rag ahaa adeer cajalad iskamuu duubahayn magu haleelahayn waxaan garanayaa maalin isagoo xasangeli noo qudbadaynaya ayaa nin cajalad wato malaa sacuudigu ka yimid ayaa loo yimid wallaahi oo bilaahi xasangeli weri baxbu kuli basaas iyo basaas ku dhalay cajalad hanaga duubine basaas baanu anagu naqaanin ninka cajalada duuba xilligaa ragna intay xagga dambe istaagaan bay cajalad iska duubaye waa kuwa imika laygu wada faanaya yutuubada ka buuxa war adeer cajalada raggii rag ahaa iska duubi waayeen dee fulay adeer cajalad maalintaa muu haleelahayni inuu naftiisa u huro dalka ismamuu lahayn waad noolaanaysaa dee nin ragi ma nin ragaa maalintaa nin ku talagalay oo dhiig leh oo ficil leh oo xiniya leh kumuu talagelin inuu noolaanayo markaa cajaladu iska duubayo waxaan danka muu galahayn laakiin ninkii fulaygahaa wuxuu ku talagalay inuu noolaanayo markaa wuxuu islahaa kaa geesiye faranta ku jira ee dalka ku xoreynaya cajalad hadhow baad ugu faarta taariikhda ku gasha iskaga sii duub taliska dambe dee sidaa muuse bilgubadle iskaga wada duubi jireen waa kuwa imika soo dhigdhigaan dee yaryarku ay facebookyada soo dhigaan fulayda adeer fulay unbaa cajalad laga helaayo halkaa soo dhigta nin ragga adeer maalintaas soo heshaan ragga aan idiin sheegayo saraakiishii habar jeclo kuwii garxajis kuwii carab cajalada ay iska duubeen markay qaaxa joogeen ay dagaalka ku jireen haddaa aragtaan taasaa saxa laakiin arki maysaan iyagu halgan bay ku jireen ragna taariikh uruursi buu ahaa oo waxbuu boobayey oo hadhow buu islahaa taariikh samayso ragna taariikh samaysi bay ku jireen ragna dal iyo dadka inay xoreeyaan bay ku jireen raggaasi waxay ku jireen dalka inay xoreeyaan inay cajalad iska reebaan nololba kumay talagelintee
ninka aan nolol ku talagelin muxuu cajalad iskaga duubiba basaas bay u yaqaaneen waxa oran jireen sirteena yaan loo geynin faqash wallaahi saas oran jireen cajaladii aan naga duubin sirteena faqash loo geynin oo ciidamadeena laga duubin oran jireen laakiin ninkii fulaygaha oo ka taliska boqolka cajalood iska duubayay muuso gaadhay oo cad oo tintalka bilgwadaag marmariyay taliska kolba soo shirnay urkeera taliska oo iska dhigay inuu joogo kala bayd iyo gabiil dusheeda yaa subxaan war ma muuso xiro joogo waxa aragteen ciidan taliya ururka waxa ku sheekeenaysan markuu xirada joogo cajaladu iska duubayay masalakiisha kala laga duubo ilaahay weyn baan ku dhaartay ururkii taliska bilgwadle ayuu intuu banaanka u soo saaray cajalada halkaas kaga horduubi jiray intuu koor weyn qabalay soo xidho fulaygu keena xaarweynahay war ninkii soo halgamay ee ku socday ee hadafkiisu ahaa u dhimo dalka cajalad adeer iskama duubin xaasha waabu dhimanaya muxuu cajalad ku falay midda kale wuxuu aaminsanaa haddii ciidanka SNM cajalad laga duubo in faqash loo geynayo haddaba qoladan habar walba faqashta cajalada u duubi jireen waaba yaabe waxaanu cajalada halkii ku haysteen anagoo maana arage dee faqashtay u diri jireen wax kale u diri jireen weer iminkana waxaaba idiin fureen TV la yiraahdo shanta Soomaaliyeed ayaaba Hargeysa laga furay soo ma ogidin warka TV la yiraahdo 5 TV wallahi Hargeysa ka furay inta cid kale wax ku sheegayaan isla ku shaambadaya Hargeysa ka furay TV-gi 5 TV Soomaaliya Hargeysa laga furay ka wada daawadate waa kameel walba waa laga soo daaya waa tilxaysiyo wuxuu soo daayay caawa kale waan daawanayo wax qabadka Muuse Biixi buu sharaxay dawladana maal gelisay Muuse Biixana maal geliyay rubana inuu idin sheegay waxaan leeyahay 5 TV waa shanta Soomaaliyeed 5 TV Soomaaliya waa shanta Soomaaliyeed markaas cid kale faqash ku sheegaya baasaboorradii Soomaaliya inuu reer Samatir Hargeysa ku bixiya maase cid kale faqash ku sheegaya warbal aqal xumaantay wadaan ayagidinku amgareeshinkii Soomaaliya nin ka tirsan oo reer Samatir Hargeysa ku bixiya baasaboorrada saldhigga dhexe boqor talaabo jira Soomaaliya wada doonayaan dad kalena way ku shaambadeeyaan dadkii dalka u soo halgamay ku shaambadeeyaan inay Soomaaliya doonayaan iyagana Soomaaliya doonaya oo TV-gi 5 TV Soomaaliya ka furay Hargeysa oo baasaboorradii Hargeysa ku bixiya maxay cid kala boodhan warna rag maalinta ma sawir binaadir yeelay wallahi inaanu yeelahayn maalinta rag sawir mu yeelahay marka waxaan idin leeyahay hadaa wanaag doonaysaan warbal ima reeyaga hadaa habara walay wanaag doonaysaan maanta dalka idinka xukuma war dadka isku soo jiido wanaag ka dhex doona laakiin ina maanta arab dhinaca u cay garxash dhinaca u cay oo yaa ku soo hadaya mooromaya jaarsa dalka keenaysa hooyada baan ka yeeleen hadaba annaga ku kurbaashina wallahi aan oromiya jaarsa soconahay inaan oromiya jaarsa soconahay markaad habar jeclad halkan ku qaadqaato ee arab ku qaadqaadeed garxash ku qaadqaato halkeed ku socotaa dalka ayaad ugu yeeraysaa ma jaarsi oromo war ka yeeli mayno waxa adeer aflagaadada hadaa joojinaysaan tan idinka dalka haystee dadka wanaag iskugu wada annaga maxaa naga daadanaya had iyo habeen baan idin miisana hadii kale hadaa idinku wanaag doonaysaan dalka idinka haysto maanta madaxweyne ka ah ummadda isku soo jiido reer Soomaaliland isku soo jiida waa hadaa wanaag doonaysaan hadaa laakiin idinku Facebook-da dadka u soo horfadhiisanaysaan oo faan iyo been duuduubaysaan cid walbana caaysan reer walbana caaysan idinkama fareerin idinkama afirin had iyo habeen baan idin miisana anaga waxbana naga daadan maayaan muusana waa lagu wada kiciyo oo daleedii roga aakhirka hadaa wanaag doonaysaan ummadda inay wanaag ku maamushaan dad ilaahay garanaya atiin wanaaga idinku ummadda ka horeeya oo inta barnaamijyada soo fadhiistaan dadka isku soo jiida oo wanaaga ka shaqeeya
ma adigii ummadii madaxweynaha u ahaa ayaa weliba xumaan deedeeya oo dadkii caaya muusena madaxweyne nooma aha waa handaraab waa quful waa fircoon waa ma dhegayste imikaan ku leeyahay waa keliyahaan leh waa qabiilayste waa naxli hursan waa balaayo iyo baas waa abaar waa baahsan waa bus waa abaartii hawaara waa hargacuna qarannimo hugeedana hor alluu ka joogaa hayna uu ka maran yahay hadal baa haysane bal waxaa rabtaan in muuse madaxweyne la yidhaahdo haddana ummadii baa caaysa bal idinku bal habara walay labadaas soo qabadsiiya beelihiina waanu caayanaa muusena madaxweyne ha la yidhaahdo bal isa soo qabadsiiya idinku beelaha labadaa waarka idinka yeeli mayna muuse waa baahsan waa abaar waa inkaar waa habaar waa naxli waa macangeg waa ma dhegayste waa handaraab waa fircoon waxa weeyaan balaaye baasoo dhan waxaasoo dhan waa musabixi ma waxaanu sacabka idinku tulnaa inaad saraakiishii ee sanam ee halganka dalkaas maanta in la xoreeyo sababta u ahayd kuwii cayab idinku tulnaa habara walay oon idinka yeelna idinku la dalka madaxweyneanu ka naybaan ayaa halkana ka leedi halkana waxaa leedi maxamed cali iyo lixle iyo iyana koodburbo waa faqash bay ahaayeen iyana hayba goodhaadh bal waxaa ku sheekeynaysaan caqli xumaantiina eeg ma taasaanu idinka yeelina waar waxa la idinka qaadan karaya maaha in si saaniya laydinla dagaalamaa weliba waajiba oo madaxa bad laydinkala wada dhaco qurun iyo ummadda ka fadhiista ordo isla yaaba oo khajila waar khajila oo isla yaaba oo xishooda waar adigii lagu xoreeyey ee dhadig ahaa ee weliba lagu yidhi madaxweyne noo noqo ayaa weliba hadh iyo habeen ummaddii halkaa usoo fadhiya war meydaan xishoonahayn isla yaabahayn ninka adeer ummaddu madaxweynihii dadkiisu ummadday waaniyaan wanaagay ka shaqeeyaan isku soo dhowaanshahay ka shaqeeyaan isku soo jiidkay ka shaqeeyaan maan arag weli ummad ka shaqaynaysa kala dirid iyo kala fogeyn oo yaa kaa futo xun adigaa dalka wax ku ah adigaa cashuurta dalka ku nool reer kaloo ku nooli ma jira cashuurta dalka laguma quudiyo reerna adaa lagugu quudiya aya ninkay ka dumaysaa waa adige u adkayso wanaag lagugu taakeli waaye u adkayso yaana calatullah guri kasta oo sacad muuse maanta ama hargeysa ku yaala 5 qof baa ka shaqo taga run baynu isku sheegaynaa mashaariicdii dalka oo dhan adigaa lagu geliyaa qandaraas oo dhan adaa qaata war markaasaad haddana xishoon laadaha ummadii ka xishoon laadaha war balkii aan waxba hayn baad caayaysaa weliba adigoo intaasoo dhan qaata war miyadan caqli ma lahayn ma loo baati sideetiin iminka warsookii adeer habar jeclo adiga waxba ku odhan mayno xisbigaaga la soo hadh annaga waxba ku odhan mayno 10 aqale muuse kaa ninkaad xisbiga u dhiibatay 10 aqale hargeysaba oo kii kaa xayiray reer kale uun ha eegine xisbigii 45 cishaad seexdeen habar jeclo naf iyo maalba ku bixisay markaad la soo hasho markaad xiniye yeelo markaad dadka la kaftan had cad baa lagu khiyaamay lagu dira had cad ayaa lagu khiyaamay masaad hadlaysaa news games imikana ku baloogay adiga banjeed markaa waxaan leeyahay war maanta haddii dinta aniga iga dumi mayso oo wallaahi nin kale oo reer sheekh saxaaq inaan ku dumahayn adiga ka dumaysa maanta dalka qaranka dhan waxa ka shaqeeya ee qarannimo ama dawlad lagu sheega adiga kugu baxaan adaa lagugu quudiyaa hadday qandaraas tahay hadday mashaariic tahay waxaan hadday shaqaalo tahay war maadigii intaa lagugu quudinayay ayaa kibriya oo ummadii isku soo jeedinaya arkaya maqlayle oo reer walba halkan ka caaya يا سبحان إلهو عقلك هنواي
war qumada caqliga way isqabataay waxa jira war wadankaba inaga xukunay dadka ay niwaanino dadka isku soo jiidnay yiraahdaa weligay maan arag ma jiraahdo dadka aan si kala didnaa ma dadka aan isku soo jeedin hadaba lama kala tagayo adeerina dalka kaaga tagi maayo nin adiga kaaga Itaaliyarina ma jiro nin kaaga reer jilicsanina ma jiro lagu bari maayo taa ku talagal ninkaad ka reer adag tahay ama ninkaad ka xiniyo badnaato dalka ka saar laakiin anigu waxaan kuu sheegayaa in ha jabin adigu aad ku dambeyn doonto godobtaad qaadatayna aan mid meel ku wadaysahayn rag baa adeer laab rag difaaca haysta ama xiniyaa isku difaacaan isku og oo laabta garaaca adeer hablaha hala caytamin kaagaas dubrki كل هبلا ما كلا بدينا سان إنكم هبلون باكو مشغولين كم يرستان ورنبا كفانا نبا دتك كطونتا أما فعل كسمايا أما دتك كوكبرة حنيه وليه هو يرى هذا حنيه حاجات كدفاع موجد حنيه كدفاعية صومالينا كوجموجا أدقون يسكموكي هذا ويا كل قراران فانكا عيدا وحا كبر كاس شويسة ورهذا ويا كل قراران هوي كتشوك ورطب كنو يقصد عياه هوي كتشوك هوي ورهذا أنا عندك الدفاع ذا هينين adeer ka joog ummadda ha iska dhex saaran anigu waan kuu digaya ummadda balaayo ha doonin kibir ha doonin iyo arkaa iyo maqlaay ha odhan ummadda ha ku meeraysan wallaahi oo bilaahi waan dhaartay reerka reer sheekh saxaab ugu yar ayuub iyo tol jeclayn aad maalin iska difaaci karahayn adna cid kale aad sheegaysa maalin inaan iska difaaci karin baa wallaahi maalin inaan iska difaaci karayn oonad gelin iska difaaci karayn war adeer markaasha shantaa shaqaalaha iyo qandaraasyada iyo nimcada aad ku jirto ha isku qoonsanin anu intaasaan kaaga digaya ha isku qoonsanin dadka wanaag ku wad adeerkaaba madaxweyne ka ah oo kale madaxweynuhu waa habarawar haba ahaado waanu idiin daynay inuu habarawal yahay laakiin dadka kibirka ka daaya oo dadka isku wada oo dadka isku soo jiida war ma intaasaa garan ladii xumaantan aad deedeysaan baraha bulshada u soo horgalaysaan la soo taagantiin waa maxay waliba waxa wadaan annagoo madaxweynena aanu haano dadkana aanu cayno cidina ay joogno oran de saaxiib isku heli meeysan labada waanu idiin miisaynaa hadiidina marka kulbaynayo rasirxaana leef soo galisaan ee beelaha caydan waanu idiin miisanaa idinkuna idinka madaxweyne dalka ka ah de idinku tanaasul oo wanaaga ka shaqeeya hadda idinka tanaasul weedan ma anaga tanaasuleyna gababa ma hayne waanu idiin miisaynaa hadiya habeen adkaysta de marka xarunta la isku sheegi waa idinku waa inaa ummadda u soo horgashaan waa inaa wanaaga ka shaqaysaan waa inaa isku soo jiidka ka shaqaysaan waa inaa xumaanta ka fogaataan laakiin haddaa idinkii soo samaysateen 300 oo group oo ka caydaan isaaq waliba reer Soomaaliya ba ka caydaan isaaq oo kaliya ka caydaan isaaq miyuu ka xiniye yar yaa u haysataan idin kama xiniye yara wax aniga iga qubanayaan ma jira casarka hadii doontaan oo miisaya unte hadda adigiiba wanaagi karan leedahay nin aqal quraarada ku jiro daaqal dhagaxa turtuuri ilaahay umada ka qabayo aawdano fur iyo xanta ku gash imika hadan beelaha kala caaya sacabka tumil oo sacab musaamaano imay tiraahdeen waa walaaladii ka daa fur iyo xanta ku gash adiga uma yeeq laafaale markay dadka kala caayaan wallaahi oo bilaahi waad yaabaysaa dumarkoodu waxay ku shubayaan oo sidan hadii kelmad la yiraahdana habaar ba halka kula soo fadhiisanaya yaa wallaahi oo bilaahi waa yaab aawdano furiya xajja ku gasha adiga hoostaada la hel
islaamaha odhan jiray hoostaada leh qumaye khilaafa leh. adeer baawarka isaaqba cid iskaba ahawo dee anagu dhadig baanu kuu naqaano soomaali o dhan baa dhadig kuu taqaano magacii kaa baabi'i maaye laakiin bal baawarkan aad sheegaysaba iska ahawo dadka aflagaadada iyo xumaanta ka daayo dadka isku soo jiida uun maxaa laydinka baryayaa haddaad dadka isku soo jiidi weydaan dee inaad irmaano caana iga daadanayaan mise anaa madaxweynaha xagga kale ha rugmatay aniguna xumaantan baan wadaya beel waliba xumaan bay wadi idinkaana markaa xumaanta abuuray ogaada markaa reer walba idinku caydaan idinkoo madaxweynaha idinkaa xumaanta abuuraya reer sheekh saxaaq inta leefka soo gasha wallaahi inaan cidi canaananahayn kuwa la canaananayaa waa idinka ee dalka ka madaxweynaha ee nimcada dalka jaqaya ee haddana ummadda caayaya idinka idin fadhidaa baashu habarawaley ha laydin arko habarawalo waxaan taslimta haysata oo wanaag ka shaqaynaysa dee inaad ha laydin arko markaa taa laydin arko dee reer sheekh saxaaqa kalena leefka waanu iska daynba laakiin maxaanu daynaa ma idinkoo dadkii nacaayaanu daynaynaa wallaahi naanaan daynayn sanadkii cusbaa baanu lahayn waanu ka tanaasule nooga duceeya caawaanu arkayna kii sacad muuse whatsappka lasoo qabtaaba arabiya garxashis buu caayay markaa ma annagaa dibnahay baruuri noogu jiraan miyaa idinkoo nacaayaan weliba sacabka idin tunaa miyaanu dhaha muuse waa madaxweyne aabba muuse aanu dhahaa nacdale ha korto sida kastoonu u ridi karna si kastoonu dumin karnana waanu wadaynaa marka anaguna haddaa wanaagga diidaan wallaahi inaanaan idin baryin iyo bilaahi tallaahi xumaanta haddaa ka shaqaysan anaguna waanu ka shaqaynaynaa ninkii dalka kii ku ladnaaba ha ku leeleelo ninka taariikh xun haddaa ka sheekaysaana mid habaaran baanu ka sheekaynaa wada qoomaluuda aanu run baanu idiin sheegayna cid idinka taariikh xumina ma jirto waxaa dad caysaan idinkoon baa taarikh xumadiina dibadda usoo saaraya habeen dambena waxaan soo dhigayaa 13 kiis xukunadoodii baan soo dhigayaa facebookyada saa ugu soo qubaya arrin reer sheekh saxaaqo xukunkaas ku dhaco kalena soo hela markaa haye idinkaa dee xumaanta yidhi bal xumaan baanu foqaynaa kuwa ummaddu idinka haysa ummadda dhex yaalla kuwiina unbaa dibadda u soo saarayseene ku abshira haddaba adeer haddaa wanaag doonaysaan oo ilaahay dad taqaano aad tihiin yaanaan idinku arkin leef dambe idinkoo reera ka caaya wallaahi inaanaan bun dambe laydin amaahinahayn reer idinka ceeb xunna ma jiro cayi socon mayse laakiin wax wada caddaanaa la soo dhigi doonaa oo runa oo xaqiiqa oo aqoontaad leeda waa tee maal haddaad aqoon leeda ma kuu barbaad keeni lahayd aqoontan aad dadka ugu faantaa war waa kee bal ii sheeg aqoontan halkan aad ku leedahay ead sheegataa waa tee ma muuse jaahil baa aqoontaadu qabyaalad baad ku heshaa aqoon kuma heshid bahasha iyanaan been ka sheegin cid kaa aqoon yarina ma jirto cid kaa aqoon badan mooye jaahil midhan baad meesha keentaa iyo muse jaahil oo midhan aqoontaad sheeganaysaa markaa adeer waa tee war adeer wax noo hadhay ma jiro waanu wadaynaa baaban ku leeyahay dee wahayo waxaa noo hadhay xukunadiini oon halkaas soo dhignaa noo wada hadhay inta gayga lagu xukumay iyo inta lisbionka lagu xukumay iyo inta balaayo baaska lagu xukumay waan soo wada dhigaya maxaa beenta loo sheegaya soo dhigay idinkuna waxa arab ka haystaan ba anaguna aanu soo dhigaynaa haye taa hooda abba kor la yidhaahda wallaahi oo bilaahi waa inan bay sheeganaysaa waan yaabay caawa markii dadka la caayayey inantaas waxaa shubaysa inanna way sheeganaysaa waxba adeer muu keeni arabsiyaad ku casuunta kuu bar maxaad u odhanaysaa arabsiye gabiile waa ta youtubada ku jirta meel habar jecle joogtana muu tegin meel arab joogana muu tegin meel garxad joogana muu tegin waxa habla la sawirana waa reerkiina
markaasaa dadka inan baa too caawo dhan markii dadka la caayay wadig sacabka u tumayey maxaad u odhan weyda dadka ka xishooda eed weliba ninkii waalinay aad lahayd ku jar wallaahi inantaas inaan wax kalahayn ku jar haddaba wada kuu barbaatin iyo wada khaniis miidhan iyo wada futadiinu foorseel ku wada taalo oo adkaysta haddaba waa taad lahayd ku jare eed cayda tulka jeclaysanaysee taadana si fiican ii dhegeysa haddaba xukunadii raggiina la wada xukumo wada gayaan soo dhigaya habeen dambe oo inay hebel midhana ninka reer sheekh saxaaqi futadiisa la xukumay carha la soo helo ee idinka ahayn waan yaabay wallaahi wabilaahi watallahi intaas waxa shubisay ilaahay yaab buu keenay inaan habar jeclaa baa la soo hadlay xukuur tolka ah cayna ka daaya waxay tiraahdaa ku jar siilka hooyadu wasa ku jar yani cayda reer sheekh saxaaqni ka habar oo caayay ku raaxaysanaysa ma hablaha markay war hablihii dadka qaban lahaa markay saa ku hadlayaan ma hablaha maaha hablo waa wada qumayooyin qalaafo leh inantu waa inay ka fikirtaa oy tulka ku tiraahdaa hays caayina oy dinanimada iyo dadnimada ka shaqaysaa oo adeer kuwiina garhku caddaaday maxaa u keeni weyde annaga siyaasaddaaba naga soo saartee siciid cilmi rooblo xildhibaanaa leefka soo gelaye maxaa u keeni weyde muusa boqol youtube samaystee maxaa kuwiina u qaban weydeno booba yuusuf ducaalaha saa u soo taagane meydaan saragba balaaki baa soo taagan hebel kalaa soo taagan waxaa soo taagan guri barwaaqo waxaa soo taagan maxamed muuse diiriye wada leefkaa ku jirtaan odayaashiina ilkuhu wada daateene maxaa ula hadli weyden kuwaa sacabka waydinka u tumee haye matayadaa idinla qadhaadhaatay arab oo dhan anaa leefka ka soo galo aniguna idinkaan gaadh idinka ahay keligeyba arab oo dhan iisoo kiin diray qof arab idinimo maayo rag iyo dumartoona keligeyba habar oo dhan loo soo diray inaan kaga filaado dibna hadal ka soo baxaana doonyaqaadu ah jiida haysan ama siciid cilmi rooba saddexda habeenimo ha soo galo ama waxaan kuri booba ha soo galo ama balaaki ha soo galo oo ma odaybaa idin hadhay ma odaybaa idin hadhay macalimiinta maamulayaasheedii iskuulkaa soo galo ilaahay igu ogi idinku ciyaar baa u haysataane markaase iminka ku leeyihiin maxaa ciraad madax garhka ku leedahay waar annagoo kula baanu idin karbaashaynaa weliba ma kuwiinaanu ka liidanaa kuwiina futada iyo afka u caddaadayna macalin khabeeraad faad haya mid arag waar bahasha xejista hasha geela cunta cabaada kelmad in layd yidhaahda ma jeclidin ma dadkiina ku fikiraya caqli xumaantiina madaxweynena aanu ahaanu dadka markaanu caynana sacabka ha naloo tumo muusena aabba muuse ha la yidhaahdo nin caqlile oo rag iyo rabbi toona yaqaanaa noocaa kuma dhaqmaba bal sidaa ku dhaqmaysaan bal idinku isqabadsiiya dadkaanu cayna muusena madaxweyne ha la yidhaahdo muumad caqlilaa waxaa ku hadashaba kumaba hadasha dee caqligii waxaa wadataan soomaali aboo caqligii soomaali aboo ayaa wadataan ilaahay ha idin sahlo haddaba muusena loo turi maayo cid kalena loo turi maaye ninkii ku ladnaabaha ku leelalo anima madaxweyne aan ahay maxaa iga galay xagga kale aan rugaya macal soomaaliyaan soo raacaya aabbaheed baan ku wasaya maxaa aniga iga galay adigii baa joojin waaye haye wallaahi adigii baa joojin waaye adigii aadan waddanka wax ku haystaa joojin waayey maasaad aniga leeda jooji wallaahi inaana joojinayn oodaanu rogaya iminka laga bilaabo macal soomaaliyaan wallaahi taageeraya oodaan u rogayaa qoobadan yaree halkan dadka lagu haysto bal waxaa ku sheekeynaysaane markaad qarankii dadka ka sheegato markaad dadka caydo markaad madaxweynihii dad ka sheegato markaad beel walba caydo halkeed ku socotaa markaa war aad iyo aad baan idiin salaamaya anigu anigii iska xidhay sanadkii cusbaad dadka aflagaadadooda laakiin iyagaa ay furay waxaabay ku soo heshiiyeen kii jeegaandiid la odhan jiray ee carabeed ina hor taagnaana dee uu iska daayo uu ka tanaasulo waa tii looga duceeyey sanadka cusube hee caawa umaysa arab
nairobi inaad joogsadeen jitay leemoodii ninka gabayga arabjiida iyo hawjin coolahna jariirada la dhici jidib ka waaweyn adeer arab istaba yaaca ma jira keligee baad ku filan keligee baad ku filan oo aqoontaa sheegataan waa tii aadnabadi maan siistay gebigiinabe rag iyo dumarba haddaan isku kiin wada daree ilaahay baan ku dhaartay rag iyo dumar haddaan isku kiin daro halkaa aynu caalamka u tartanno adnaa laydinka qaadanaya inaan nin laydinka qaadanayo gabarhtoona maxaa kale sheegaysaanba bal wax kaleba yaan idiin soo qabanin ragga arabba anigoo soo qaban bal aadna oo keliya bal rag iyo dumar isku taga habar awalayo aadna ma gaadhaysaan oo keliyaata aqoon unbaad tidhaahdaane bal aqoon-yahankaaga kuu jooga dalkee kuu joogaa waa keed sheegta ma muuse bixiyo booba bal siyaasigaaga ad leedoo dhan intaad isku wada keento xasan ciise kale la miisaan waxaad siyaasi leedahay bal waxaad siyaasi leedoo dhan xasan ciise ku miisaan xasan ciise ka miisaan badan bal cabdilqaadir jirta ku miisaan siyaasiyiintaadoo dhan walahi cabdilqaadir jirta ka miisaan badan bal aadnoo inana ku miisaan rag iyo dumar habraa wal intaad miisaan wada saarto aadnana miisaan saar walahi iyadaa kaa miisaan badan oo kaa aqoon badan marka adeer aqoona ha sheeganin aqoonna ha sheeganin bahasha ka qajin aad baan idiin salaamayaa hablihii sacad muuse ee sharafta lahaa ee qiimaa lahaana waan salaamayaa ee codka macaan noogu luuqeeyey arab maan ka dhasho arab maan u dhaxooy hablahaa waan hambalyeynayaa meel kasta oo ay joogaan hablaha sacad muuse gob hadal gobeed baan u haynaa anagu waan idin salaamayaa hablaha igu qaaliga sacad habrawal ee codka macaan laxamka ku saaray arab maan ka dhasho arab maan u dhaxo hablahaas sharaf bay naga mudan yihiin oo hadal xun kuma odhanayno ammaana waanu haynaa gobgob dhashay aada iyo aad baan dhammaantiin idiin salaamayaa meel kastoo kala joogtaaba damee aqoonunba inaan kuu sheeganayaa maogti sheekhoodoo dhan haddaan isku daro waxaa kitaab sita ee habar awala sheekh dirir baa ka miisaan weyn wax allaale waxay aqoon leeyihiina rag ba iska daayo adna haddaan ku miisaamo inana adna ka aqoon badan de markaa maxay aqoonta sheegayaan bawati xasan ciise iyo cabdilqaadir jirtay iyo maxamed warsameyna waa reseefka raggaa ragga ee wada b h d gaah markaa adeertee bahasha inigu qoodina aqoon-yahankaagu adeer waa muuse biixi iyo booba iyo maxamed muuse dir tata iyo guri barwaaqa iyo kuwa adeer adiga aqoon-yahankaagu dee aniga aqoon-yahankaygu adeer kuwaa maaha xaasha arabdaan dhagax arab iyo albaabada adag waxaasoo dhan geesinimaa naloo yidho wallaahi haddaan arabi dhalin daamamku ima adkaadeen ninkii yidhi maad maqan adeer ciidogalebe 6 askari iskugu tegeena daankiisa budka ku kala jabay haddaan arabi dhalin daamamku ima adkaadeen 6dii addoon budkii iyo laadkii uma adkaysteen macyaar baad u haystaa arabdaan dhagax macayood moodtaa haddaan dhadigna la odhan waan sahlan sidiina arab iyo albaabada adag cabdicasiis cali barro nin mareexaan oo imkiiniya jooga oo ninkii morgan bedelay ayaa adeer noo bixiyey albaabada adag oo taarku ku odhan jiray albaabada adag baan ku baxaynaa adigana wuxuu ku odhan jiray dhadigii baan ku baxaynaa maalinta kuusoo dagaal tegayo annaga wuxuu odhan jiray maanta waa albaabada adag ciidanka hala adkeeyo albaabada adag baa maanta loo dagaal tegaya
adna wuxuu ku odhan jiray dhadigaa loo dagaal tegaya. marka anagu adeer waan ku faanaa arab iyo albaabada adag iyo arabtaan dhagax iyo waan ku faanaaba. waa wax wada adag mar haddaan dhadiguna la odhanahayn maasha allah alxamdulilah. afarta noo dhaleena waanu ka weligeed iyo allaheed nin sacad muuse dhalo arabo taliyana lama arag cimriga. hadda waa reerkaanu jaarkana iskugu wada xigno. ma aragteen weligii nin sacad muuse dhalo arabo taliya waliyo bile ka tay inaan islaamtaayo ummadaayo ilaahay aayad qur-aan ku sheegin. awr halaabe ma weydiinaba waxay dhaleen kay noo dhalaana wuxuu ka shaqeeyaa un munaafiqad wax kalaba kama shaqeeyo. laakiin ragga ah yaa arabe cawaandiyiinta adeer rag baa dhalay. raggii arabe kabaha kaa subkaday ee degada qoryaha kaaga gebigooda wada garxajis baa dhalay. weligii ma aragtay nin habar oo dhasho wasiir noqda ama janan waliyi bile ka tay ama sarkaal ciidanba ama korneylba lama sheegin dee. markaa maxaan ku wada hadlaynaaba kuwa. war aad baan idiin salaamaya aada iyo aad baan idiin salaamayaa meel kastoo kala joogtaanba. asxaabtaygu qaaliga ah aad baan idiin salaamayaa.